runtii waxa weeyaan run way jirtaa arintaasi in airport-kaasi waxa weeyaan ay yimid shalay toole wasiirka duulista hawada ay yimiday Somaliland Farxaan waa wasiirkii shanaad saacadiisa waa run weey waa sax weey laakiin wasiiradii hore wuxuu kaga duwan yahay Farxaan wuxuu yimid shalay wuxuu yidhi taabash waxa weeyaan dadku ma dhageysanayaan dhagax meel la dhigo laga tago deena lagu turanturo dadku dhageysan maayaan wasiirada hore ay noo soo dhagax dhigay turanturo baydaan bahaday laakiin wasiir Farxaan oo aruntiina dhalinyara oo aad u firfircoon oo ka duwan wasiiradii hore waay markuu ka duwan yahay wuxuu kaga duwan yahay isagu waa taabash wixisiyo shaqada shaqada socotay tagnay shaqada socota ayaynu shalay tagnay sida kee aad ku haysaan anigu waxaan ahaa dadkii la socday ayaan ka mid ahaa waxa weeyaan deyrkii xayndaabkii horta bal deyr airport-kan intii aw lahaa in la helo oo dhararka 2100 mitir iyo kolka raanwayga laga qaado dhinac walba looga dhaqaaqayo 150 oo balacana waa 300 dhararkana waa 2100 sidii uu shalay agaasimaha airport-ka iyo ay nooga waramayeen marayuhu wasiirka warbixinta ku siinayeen waxa la soo xidhayaa dhammaan xayndaabka airport-ka waxa iyadana digniin kama dambaysi la siiyay cid kasta oo ka dhex dhisatay airport-ka intii uu lahaa xayndaabkiisa ku jirta iyo dhismo kasta oo ka dhisan in cagta la marinayo shalay digniintii uu bixiyay wasiirku bay ahayd bilow shaqo weey oo airport-ka waa iftiin cusub oo soo baxay ama waa guul iyo ififaala aynu in muddo ah saadaalinayni wii waxaan leeyahay Farxaan la isgarab taago hawlaha uu ka wado airport-ka Boorama iyo dadweynaheeduna in badan bay Boorama iyo dadkeeduna in badan bay u qabeen baahi airport aynu qabnay lama oran karo idinka ka marqaatiya saxaafadahan bulshadana cid kasta oo danaynaysa ka dhabtay airport-ku oo ahayn aqshaasta ula qabsada carabkeedu dhaliisha iyo ruxmata sheelka ula qabsadaan ahayn in cagta ama lugta la soo jiido horumarka gobolka aanay ka ahayn laakiin ay ka mid ka tahay in indhahooda iyo aqligooda furan ee caafimaadka qaba waa inay soo arkaan indhaha soo saaraan waa wasiirada hore waxa weey ma jireen tabashleyn bay weey ma jireen waxa weey ma jireen waxaan macquul ahayn inuu naaficin bay weey ma jireen laakiin kan wuxuu inaydi Farxaan waa taabasho waxaygu waa ka duwan yahay kuwii hore waanu ka dhabeeyay uu bilaabay shaqadaasi waana socotaa xayndaabkaasina waa la soo xidhayaa maalmaha soo socda insha Allah taala waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan leh sida uu Farxaan inoo sheegay 3 bilood ee inagu soo fool kale airport-ka Boorama inay wax weyn iska bedeli doonaan miisaaniyadana loogu daray lacag wanaagsan wax kale oo fanana oo hadda raadinayo raawdan loo ka codsaday inaynu isbarbar taagno oo la sameeyo gudidii airport-ka ee qaaraanka gobolka iyo qarankaba ka baadi dooni lahayd hadii Ilaahay dhaado tiina wax la sameeynaya hadii Ilaahay dhaado weegan gudihiisa hawsheena way ka socotaa airport-ka ninkii doonayana ha soo eego xayndaabkii iyo deyrkiina waa la bilaabay iyo siligiin lagu xidhaa la bilaabay hadii Ilaahay dhaado qof kasto doonayana ha soo